الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي إذا قالقة أهوائي سلامي سهلان كدب سيدا هراء وقبلني وحايدين وضع عشر كمد عشرة ديني عشر كينا مانت إن شاء الله وحنو قنايا سيدي آيات ودورن كرتا قفك آد نرش اللو داقي ست qodobka koowaad waxaa waaye diin iyo dhaqan wanaagsan inaa ku dooratid. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam isaga oo rag la hadlaaya talana siinaya wuxuu ku dhahay tunkixul mar'a li arba'a limaaliha wa lihasabiha wa lijamaaliha wa lidiiniha fadfar bidaati diin taribat yadak. xadiidkaas oo macnihiisu yahay haweeneyda ama gabadha ama dumarka waxaa loo guursadaa afar shay ayaa ku riixda ninka inuu guursado. limaaliha hantideeda ama dhaqaalaheeda ee haysato, walixasabiha reer wanaagsanay ka dhalatay, walijamaaliha inay yani qof aad u qurux badan inay tahay, walidiiniha iyo diinteeda inuu ku doorto. fadfar bidaati diin, dooro mida diinta leh taribat yadaag, ha ciidooban gacmahaya. jumlada dambe taribad yadaag nowcan maa waxay u muuqataa inay tahay kelmad habaar ah, laakiin waa kelmad halhays u ah carabtii markaas jirtay. waa meesha anaga af Soomaaliya aan ka dhahno keel beele oo kale waaye. sidaasi la mid ah Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam isaga oo la hadlayo awliyaa ul-umuur, gabadha dadka gacanta ku hayo ama arrinkeeda ama taladeeda iska leh sida aabaheed oo kale. إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وحولها نبي محمد صلى الله عليه وسلم هاتو إذن كصودنتو قف يعني رالي أكتهن دين تيسا يا أخلاق ديسا أكوريا إلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وإلا هاتيك لوحا أهانسو فتنو أيا كده عيسلوك إيوه فساد وين. fitnadaas maxaa waaye culimada qaar waxay dhaheen ziinada badanaysa iyo waxyaabo la mid ah, laakiin waxaa jiro macne kaas ka weyn oo aad uga muhiimsan, taasoo ah ragga waxaa waaye qaa'idka guriga ama hoggaanka guriga hadduu hoggaanka ka halaabanay ama uu ka xumaado ama uu noqdo nin aanan diin lahayn, ninaan akhlaaqiyadkiisa aanan wanaagsanayn, reer wanaagsan ma soo saari karo. reerkaas macnaha markuu soo baxo wuxuu u soo baxayaa bulshadii ama mujtamacii uu ka mid noqonaya. haddii reero badan oo aanan diin lagu soo barbaarin, tawjiihaadka saxda ah aanan helin, saameyn intee la eg ayay ku yeelan kartaa bulshada. labada xadiis waxaa ka dareemi kartaa sida diinta ay muhiim u tahay qofka in lagu doorto. sidoo kale waxaad arkaysaa aayadaha qur-aanka ee xiriirka la leh mawduucan in badan inay nagu gubaabinayaan diinta iyo wanaageeda. آياتهاس waxaa ka mid ah وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وكوريا kuwa aanan reeraha lahayn ee ka mid ah addoomihiina wanaagsan. wanaagka halkaas laga hadlayo waa diinta. sidoo kale waxaa ka mid ah الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات. ابن كثير wuxuu ku fasirayaa aayadan الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء والطيبون من الرجال للطيبات من النساء والطيبات من النساء للطيبين من الرجال. إنها قف ونكسن أياك سؤال سيدا أيقول كذا. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صلاحة لغو شيء وادد قبلها ونكسن أداعي بدن إلهي أداعيا رسول كيسا إن كذا نوكو أداعسا وحي ونكسن رمان لغو ما أداعيو. حافظات للغيب بما حفظ الله وإن حفظنا يعني وحيابه أهات إن حفظيو. qodobka labaad waxaa waaye hadafka guurka ama ujeedada guurka. qodob aad muhiim ah waaye. labada qof waa inay ka midaysan yihiin hadafka guurka. qofba wuxuu u guursanayaa inuu iskaga rido kulaalka shahwada oo kaliya, ama gabarba waxay u guursanaysaa ninka dhaqaalihiisa. marka waxyaabahaas haddii uu waayo qofka ama ay meesha ka baxaan, waxaa imaanaysa markiiba in lagu kala boodo. waxyaabahaas oo dhanna ma ahan hadafka saxda ah ee loogu talagalay guurka. qodobka saddexaad waxaa waaye muuqaalka guud. macnaha waxaan ka wadaa shakliga.
sida aan wada ognahay ragga inta badan waxay wax ku doortaan ama dumarka ay ku qiimeeyaan waa quruxda, inkastoo aysan jirin quruxda cid isku waafaqday. sidaas la mid ah gabadha waxay xaq u leedahay inay doorato qof ay ku qanacsan tahay muuqaalkiisa. micnaha markaan saas leeyahay waxaan ka wadaa qofka waa inuu aqbalaa qalbigaaga. qof yacni aad noocan ma ka dhisan tahay way adag tahay inaad nolol la wadaagtid. qodobka afaraad waxaa waaye isku soo dhawaashaha da'da, aqoonta iyo dhaqaalaha. macnaha waxaan ka wadaa da ahaan labada qof inay isku dhow yihiin, qofna inuusan aad u yareen qof kalena uusan aad uga weynaanin. xoogaa iyadana saameynay leedahay. aqoonta qof inuu wax badan akhriyo, wax badan u yaqaano, wax badan uu bartay, qofka kalena uu jaahil yahay, iyadana culeys ay keenay. dhaqaalaha sidoo kale gabadha haddii reer laban oo dhaqaale haystay ay ka dhalatay way ku adkaanee in yani ay la noolaato nin faqri ah ama aanan waxba haysanin, isagana culeys ay ku noqonay. cagsiga sidoo kale iyadana saameynay leedahay. waxaa ka mid ah bii'adii oo labada qof waa inay dhaqan ahaan waa inay isfahmayaan ama ay isku soo dhow yihiin. qaar ahaan ragga reer maka dumarkooda way ka adkaayeen, rag xoolo dhaqata oo ganacsata ay ahaayeen. dumarka hadalka kumaysan celin jirin, way ka dambeeyeen raggooda. laakiin reer madiina waa ay ka duwanaayeen oo ayagana waxay ahaayeen rag beeraley ah. dumarkooda way la niqaashi jireen, nimankooda hadalka way ku celi jireen. markii maka laga hijrooday oo madiina loo hijrooday dhaqankii ansaarta iyo muhaajiriinta gabdhahooda wuu is-saameeyey. waatii cumar bin khataab radiyallahu anhu gabadhiisa hadal kusoo yara celcelinaysu arkay, markaas wuxuu dhahay naama haddaa bilowday inaa hadal igu soo celisid. markaas waxay ku dhahday gabadhaadaba nebigu way ku celisaa hadalka. qodobka shanaad waxaa waaye talo. intaas kadib waxaa wanaagsan inaad la tashatid qof aad ku kalsoon tahay sida waalidkaaga oo kale, hooyada, aabaha. qodobka lixaad ee ugu dambeeya waxaa waaye salaatul istikhaara inaad tukatid. waa 2 ragco oo sunno ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ku weydiisanaysid arrinkan hadduu khayr kugu jiro inuu ku waafajiyo kuuna fududeeyo, hadduu shari ku yahayna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhinac kaa mariyo si fudud. sheekeeraan kusoo gabagabeynayaa waxay xiriir la leedahay qodobka lixaad. asxaabteyda ka mid ah wuxuu dhahay abaayo waxaan jeclahay gabar inaan kursadaan rabaa. waxay igu dhahday soo istikhaarayso. iyadoo soo istikhaaraysatay waxaa usoo baxday barnaamijka inay muwaafiq inuu yahay. aniga waa cabsanaya, waxaan ka baqayaa gabartaas aan jeclahay inaan waayo ama isoo baxdo yani natiijadii aan rabay natiijo ka duwan. marka waxaan ku dhahay mar walbo ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu kuu dooro ayaa khayr kugu jiraa, lianno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kaaga naxariis badan yahay waalidkaaga iyo qof walba oo ku jecel, xataa naftaada uu kaaga naxariis badan yahay. marka ma ahan inaad ka cabsatid wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu dooray. cashirkeena intaas ayuu ku eg yahay. haddaan ugu cusub tahay soo dhawaaw. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.